Salaamullaahi calaykum jaalayaal meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waa idin salaamayaa. Kulamadii galabta ilaa caawa soo dhammaaday ayaan wax yar oo falanqeyn ah ku samayn doonaa. Kooxda Liverpool ayaa 9 dhibcood u soo jirsatay Man City kadib guul ay ku rafaadeen oo ay kasoo gaadheen Crystal Palace. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa soo yareysay farqiga dhibcaha ay ku hayso hoggaanka Premier League kadib guul ay ku rafaadeen oo ay kasoo gaadheen kooxda reer London ee Crystal Palace, kaasoo ay kusoo garaacday 3-1. 2 gool ay kala dhaliyeen Van Dijk iyo Chamberlain ay qaybtii hore kala dhaliyeen. Sidoo kale rigoore uu dhaliyay Fabinho ayay 3 dhibcood ku soo heleen oo ayna kuna soo galeen kaalinta labaad. Sidoo kale ay u soo dhawaadeen Man City oo 9 dhibcood horyaalka ku haysa. Kooxda Liverpool ayaa bandhig fiican samaysay qaybtii hore ciyaarta, waxayse ku dhawaatay inay goolal kala dhaliso. Hase ahaatee qaybtii labaad ayay Crystal Palace ku bilaabatay dardar fiican, iyagoo daqiiqadihii ugu horreeyeyba ilaa 2 gool oo caddaan ah iska lumiyey. Ugu dambeyn Liverpool waa soo badisay, waxayna soo gashay kaalinta labaad, waxayna 9 dhibcood u soo jirsatay kooxda Man City. Sidoo kale kooxda Arsenal oo kaalinta afraad uga tanaatushay Man United kadib barbaro gool la'aan ah oo ay Emirates la gashay kooxda Burnley. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iska lumisay fursad ay dib ugu noolaan lahayd kaalinteeda afraad ee horyaalka Premier League kadib barbaro niyad jab ah oo ay kala kulantay kooxda Burnley oo marti ugu ahayd Emirates. Kooxda Arsenal ayaa dib ugu soo ceshan lahayd kaalinta afraad ee kala sarreynta Premier League, waxayna kala wareegi lahayd kooxda West Ham United iyo Man United. Hase ahaatee lugaha la qabtay kooxda ugu hooseysa kooxda ugu hooseysa Burnley, taasoo lugaha qabatay kooxda Arsenal. Mikel Arteta ayaa kaliya hal bedel sameeyey safkii uu kula ciyaaray kooxda Liverpool Khamiistii oo guuldarro kala soo hoyatay, waxayna qaybtii hore ay ahaayeen kuwo aan awoodi karayn inay goolal xerada ganaaxa la galaan. Sidoo kale kooxda Chelsea ayaa iyaduna guul weyn kana gaadhay kooxda Tottenham. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa Stamford Bridge ku dubatay Tottenham markeedii saddexaad 2 isbuuc gudahood. Thomas Tuchel ayaa si dhab ah uga adkaaday Antonio Conte. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa Stamford Bridge ku dubatay kooxda Tottenham markeedii saddexaad kuna garaacday 2 toddobaad gudahood. Blues ayaa u soo dhawaatay kooxda hoggaanka haysa Man City una soo jirsatay 10 dhibcood. 2 gool oo ay bilowgii qaybtii labaad ay dhaliyeen Hakim Ziyech iyo Diego Silva ayaa Chelsea siiyay guusha ay ka gaadheen kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham ayaa iyaduna iska lumisay fursad ay ku imaan lahaayeen kaalinta afraad ee horyaalka Premier League. Chelsea ayaa qaybtii hore ciyaarta iska lumisay fursado ay goolal ku dhalin karayeen, waxaana goolashaas oo caddaan ah ka khasaariyey Lukaku iyo Odoi. Tottenham ayaa laga diiday gool dhammaadkii qaybtii hore ciyaarta uu saxiixay Harry Kane daqiiqadii 1 ee bilowga ciyaarta. Lukaku ayaa ku dhawaaday inuu hoggaanka u dhiibo kooxdiisa kadib markii uu xerada ganaaxa ka helay kubbad halis ahayd oo uu u dhiibay Mount, kaasoo isaguna uu shabaqa dhinac kaga dhuftay. Haddaba wararkii ciyaaraha intaasan kusoo gabagabeynaa. Daawade sheerta iyo like-ta ka ilaawin. Daawashadaadu waxay noo tahay la socodkaagu dhiirigelin bay noo tahay. Salaamullaahi calaykum meel kasta aad joogtaan. Ilaahay idin xafido.